kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada wararkana ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidanka TDF ee Tigray oo dababaad aad u culus wata ayaa gudaha u garay gobolka Walqaytar ee gobolka sida weyn loogu muraysan yahay difaacana ka xidhan ciidanka Eritrea iyo xogaga Faano isku dhafa xaaladda dalka Itoobiya ayaa marba marka dambaysta ka sii daraysa iyadoo shirar xasaasi ah oo xaaladda dalka Itoobiya looga hadlay ay ka furmeen magaalada Addis Ababa uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed safiirka Mareykanka iyo gudoomiyaha xisbiga TPLF Gabrasiyon iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xogaga mucaaradka ee dalka Itoobiya shacab aad u tiro badan oo Axmaara ayaa lagu xasuuqay gobolka Axmaarada iyadoo militariga dalka Itoobiya ay halkaasi ay ku beegsadeen dad rayid oo aad u tiro badan sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa howlgal militari ka bilowday gobolka Oromiya iyadoo dowladdu ay sheegtay 40 bari gudahood inay xididada ugu siibi doonto xogaga oo wali ay aadka u awood badan ee gacanta ku dhigay gabiyaha gobolka Oromiya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ee xaaladeedu marba marka ka dambaysa faraha ka sii baxaysa iyadoo dowladda Soomaaliya lagu eedeeyay musuqi ugu cuslaa inay gashay gabiyaha dhaqaalihi ugu badnaa laga goostay ciidamada danaba ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ku gaaray dalka Tanzania iyadoo madaxweynuhu uu wajahayo siyaasad aad u culus oo gabiyaha kursiga laga xayuubinayo qodobada kalena waxaa kamid ah galbeedka City ee dowladda deegaanka Soomaalida wali colaadu halka ay ka taagan tahay labada ciidanna way soo fadhiyaan xabaduna saacad kasta ay qarxi kartaa iyadoo gurmadka ciidan ay ka kala imanayaan labada dowlad deegaan uu soo buuxdhaafiyo furmaha hore dagaalka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ay warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxay igala qayb galaya labada muxallal waa Cornel Faragod iyo Dr. Goni soo dhawaada saaxiibayaal waxaan tagaynaa gobolka Walqaytar ee gobolka Axmaarada ama dhulka lagu muraysan yahay Tigray iyo Axmaara oo mar kale noqotay furin colaadeed oo aad u balan iyadoo dalalka Mareykanka iyo maartay Canada ay digniin weyn ka soo bixiyeen colaadaasi ee Faragod wadaan kugu horeynaya ciidamada Tigray ee TDF iyo militariga Itoobiya oo hal goob laga daabulay gaadiid mid ahna lagu daabulay ayaa gobolkaasi ka bilaabay weerar ka dhan ah Axmaarada iyo Eritrea dowladdu waxay sheegtay inay maalmo gudahood ku qaban doonto colaad horna ayaan halkaasi ka furantay Faragod sidoo aragtaa weerarkan wada jirka ee labada ciidan ay sida wada jirka u qaadeen aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaanba bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan Itoobiya horta way karkaraysaa oo indhawaalaba way soo magaranaysaa wada socoteen oo xaaladeedu ma degana nimankii loo oran jiray TPLF wadaweydo waa nimankii Pretoria dagaalkii labada sano socday lagu soo heshiiyay in la dhaqan geliyo qorshahaasi Itoobiya iyo qoladan TPLF u dhaxeeyay wada socotay awaleed wada socotay wada hadaladii Tanzania ku fashilmay wada socotay Faano oo laftigeedu diiday ma garanaysaa wada hadaladii ugu dambe yacni way iswada haysataa oo Itoobiya saddexdii qowmiyadood ee ugu tunka weynaa labadii la isku oran jiray Abyssinia iyo Oromada haatan xukunka haya intuba waxa lagu dagaalamay horta waa xukunka laakiin arrimaha xiisaha leh ee warbaahinta dalkaasi Itoobiya iyo kuwa madaxa banaanba ay qorayaan waxa weeyaan in hadda ka hor ay ahaayeen wax allaale wixii ciidan ama ha noqdaan qaybtan militariga ee TPLF ha noqoto ama liu booliskoodu ha noqoto iyo ciidamada makalakayaagu inaynan isku meel gelin hadda ka hor intaas ayaa horta yaa badbaado ahayd laakiin maanta waxaa dhacday oo labadii bari ugu dambeysay la daadgureynay isku meel laga daadgureynay TPLF iyo waliba ciidamada makalakayaaga militariga dalkaasi Itoobiya isku meesha laga daadgureynayo waxa loo daadgureynaya deegaanka Walqaytar ayaa loo daadgureynaya halkaasi waxa ku nool ugu yaraan baa la yiri dad gaaraya maxaan ku dhahay 15 milyan oo Itoobiyaan waliba qoomiyadda Amxaarada ku dhow iyo Eritrean iyo wuxuu isku dhafo farbadan horta meesha ku nool haddaba waxa laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal uu ku dhaxmaro Eritreanka oo ay ku lamaansan yihiin xoogagii Faano iyo maleeshiyaadka Amxaarada iyo waliba kuwii liu booliska ee deegaanka Amxaarada ka amar qaadanay intaas isku dhafan baa laga yaabaa inay ka hor yimaadaan laakiin hadda waxa socota daabulaada ciidanka ay hore u sii galayaan deegaanka Walqaytar iyagoo wada socda TPLF iyo ciidamada makalakayaaga wadnahana farta lagu hayaa dagaalkuna markasta uu qarxi karaa qoladan ma garanaysaa TPLF waxay sheegeen in inta badan ka soo farxasheen deegaanka Walqaytar
oo ay ma garanaysaa gobolka raaya ka soo farxasheen raaya ayay ka soo farxasheen laakiin haatan ay ku sii socdaan deegaanka Walqayta iyo ilaa Xumayre iyo xudka saddex geesoodka ay kala wadaagaan Suudaan iyo dalka Eritrea hadaba shidow xaaladdu way culus tahay waana arinta ma garanaysaa ay deegaanka Amxaaradu ay walaac xoog ka muujinayaan Mareykanka iyo qolada xuquuqul insaanka waxay sheegeen in dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ay dad aad u far badan oo rayida ay maalmihii ugu dambeysay ku xasuuqeen deegaankaasi iyagoo tilmaamaya inaan loo kala aabayeelin ma maleeshiyaad ba ma shacab ba ma odayba ma waayelba wax allaala waxay soo gaarayaan birta ka aslayaan marka xasuuqii hadda ka hor markuu 2 sano uu socday dagaalkii Tigreega midkii mid la mid ayaa hadda maanta lagu hayaa Amxaarada meesha ay wada socdaan nimanka lagu magacaabo TPLF iyo ciidamadii dawladda ay wada socdaan faragodow sidoo kale waxa la leeyahay dawladda Itoobiya waa t-shirt inay dhaqan gelinayso heshiiska 2 bilood gudahoodna ay ku soo dhameynayso laakiin ciidanka Tigray hubeysan ee ka dagaalamaya goboladaasi una jeeda Humeeri iyo xuduudka dhulkaas soo xidhaan qorshaha waxa weeye leeyahay inay soo gudbiyaan xuduudkaasi dad Tigray aad u tiro badan oo ku xayiran gudaha Suudaan qaxootina ku inay guryahoodii dib ugu soo celin Axmaaradan meesha ay ka saaraan hadiiba Axmaarada la qaxinayo Tigrayna la soo gelinayso qax ku bedelun ma ama Tigrayga dawladda Itoobiya ma ku kalsoon tahay in Tigrayga dhulkaasi qabsadaan ay hubka dhigaan hadhow ay dad rayida noqdaan horta waxaad ogaataan nidaam sal fiican oo dalka Itoobiya hadda wada maamulo kama jiro shido nidaamkan oromizmka ee dalka Itoobiya maanta hogaaminaya waa nidaam angaga wadarkaysay ninka hadda shalay ugu sareeyay wata markana ku daray taliyii ugu sareeyay ciidamada cirka heerkoodii baa la laayay waana ku hay hadda maanta OLA baa ku biiraya marka nidaamku wax weeyaan ama military ha noqdo ama ma garanaysaa federal police ha noqdo ama wasiir ha noqdo nin walba meeshuu ka soo gaara dalka Itoobiya ama taliye police ha noqdo ama taliye ciidan ha noqdo meeshuu ka soo gaaro iyo wax ka qasahaya abiy maalin wuxuu isugu yeeray sirdoonka iyo waliba saraakiisha ugu sarreeyay isugu yeeray wuxuu sheegay dawladda dad xilal waaweyn u haya in wax ka sahaya wuxuu sheegay in dhibaatada ugu faraha badan ee hadda maanta loo maaralayo Itoobiya ka taagan in dad ma garanaysaa ka amar qaata wadamo kale oo markaa ku tilmaamaya cadawga Itoobiya inay yihiin oo qaarkood ay yihiin bur reer galbeed oo qaarkood ay yihiin bur wadamo dariska oo qaarkood ay faaran yihiin in ay wax ka sahayaan haddaba shacabka la leynayo qaar ba ugu talagashan waayo hadda goor waxaan xasuusanaa ciidamada Itoobiya markii meel loo diro ama ma garanaysaa hawlgal loo diro dad shacab ay u imaanay kasbi u leyni si dadka shacabka u kaco si shacabka uu kaco ma garanaysaa dawladda loogu dhaneecayo ayay dad kas u leynayaan marka horta leynta iyo barakaca iyo dhibaatada maanta meesha ka taagan waa sidoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya sheegay meel laga soo qabta male meel laga taxakuma male wax isku maxkamadeynaya male wax xilka qaadis loogu sameeynaya male